السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولالها شرفتي maamuuska badan oo walaalkan Ismaaciil Diiriye waxaan dib u milicsan doonaa barnaamijkeeni Revig Architecture cashirkiisii lixaad kaasoo noqon doona rooms sida aad u abuuri lahayd qolka area-diisa room number u sii lahayd sida aad haddana color u qaasa u sii lahayd marka ugu horeysa waxaad tagtaa qaybtaas architecture adoo jooga soo qaad roomkaas okay roomka wadana halkaan imo edit leh kooda hore muxuu ku tusi raba kaliya show number room number ka kaliya waday area-da ku darso okay de apply okay room de haddana adigoo wato ku dhufo qaybtan kale kan oo kale imo horta ku dhufo asagan okay kaasna noogu dhufo qaybtan ayaga maadaama store isku wada tahay laba qayb inuu kaaga dhigo raba saa labada qayb ugu ilaashato ka laabo horta modify ku dhufo calaamadda then halkaan ku dhufo derbigaas noo highlight gare meeshaan ku qoran tahay wall bounding kiligta ka qaad then architect room noo keen ku dhufo marka ma aragtaa wuu isku wada xiray kiligsiin sida aan dareemayno dhibaatooyinka ugu badan ee haysta waxay tahay in roomkaas aad u weyn yahay takastiga waa weyn yihiin saan dareemayo okay sida aad dareemayso takastigan aad u weyn yahay meesha ku qoran midaan oo kale hadda area-deena ka baxay kaliya dhigi kartaa edit family kan oo kale noo saar highlight leh edit ku dhufo bartaan takasti size-ka 3 ga waxaa nooga dhigtaa 3 mm kaas waxaa nooga dhigtaa 2 mm kadib apply okay waa uu yaraado xoogaa sida dareemaysid markaas waxaa tiraa load into project kadib waxaa ku dhufataa override the existing version waa uu yaraaday dirtaan daarta si yaray kartaa okay marka waxaa sameynaysaa hadda xoogaa sidii waa keeriyaha waxaa sameynaya kan ku dhufo then horizontal ka meesha waxaa ka dhigtaa vertical okay roomkan room 6 ku ah 5 meter square halkaas markaad joogto waxaa sameyn kartaa horta qolalka magac bixi room ku qoran kan maxaa waaye double kaliya dhexe kan maxaa waaye master room kana qolka koowaad ka dhigo number 1 kan maxaa ka rabtaa bedroom qolka labaad ka dhigo kana sitting room qolka saddexaad double click haddaad tiraahdo double click aad leedahay kana maxaa waaye waa kitchen kuwa number 4 meel banaana click ku dhexe is dhaween saa sameynaa double click marka meel ku tiraahdo kan maxaa waa store halkaas markaa joogtid labadana noo hartay laba toilet architect room
kan halkaas ku dhufo waxaa ku qortaa toilet. Okay, si aan qaybtaan u kala reebo maadaama hadda aan rabo qaybtaan inaan staircase aan ka dhigto, waxaa sameynaysaa room separator dhexe. Staircase-ka waxa ka bilaabanaya intuu ka bilaabanaya up to here. Then waxaa soo qaadanaysaa room qaybtaan intaan waxay noqotay gooni, intaana gooni. kadib halkan waxaa ku dhigtaa corridor. qaybtaana waxaa ka dhigtaa staircase. hadda kan oo kale waxaad dareemaysaa inuu kaaga gala qaybtaas keligaa dhigi karta, horizontalka vertical ka dhigi karta. That's good. hadana waxaa ka dhigtaa toilet. Yeah. Then waxaan sameyn doonaa departments wixii rooms aan bixi doonaa, wixii kitchen wixii toilet ma fahanti, corridorka staircase-ka wax kala qaadi doonaa. Okay, hadda kan oo kale departmentigiisa waxaan ka dhigaynaa waa room soma. inta imo soo jeed hoos imo department meesha ku qorantaa ku dhufo, waxaan ka dhignaa fiiriya mouse-ka calaamadan hadda banaanka usoo bixiso it means adoo apply dhahay la mid tahay marka dhex ka soo bixin gudaheeda adoo jooga room ku qor meeshaas room. Okay, department waxaan qoraynaa darabto WC. kana departmentigiis maxaa waa kitchen. Okay, kana maxaan dhahnay, kana waxaan ka dhignay departmentigiisa stair. Okay, waxaan noo haray kan departmentigiisa WC aan ka dhignay, kan department ma siinay. fiiri markii calaamadda pluskaas ay kusoo bixi weyso adoo halkaan camal ku haya taabkii yaa la taabtay calaamadda baalkii maxay ahayd furahan taabka hadaa taabato iyo gadeed. kadib maxaa la department geeskaana fure maxaa waaye kan room. Okay, kan taabkii taabo department gees maxaa dhaha room. geeska la ku dhufanay hal mar la room soo qortay, hal qola ku soo qortay, inta kala saa ku keedinayo. kan waa qaadanay staircase. kitchen-ka maxaan ku darnaa department-giisa kitchen aan ka dhignay. store-kan asoo kor haya calaamadda taabkiga taabo cancel-ka waa helay kaliya markaas. department-giisa maxaan ka dhignaa room caadi waa saqol asay laftirkiisa store-ka. qaybtan corridor-ka taabkii price taabkii macnaha calaamadda taabkiga taabo. kadib kan maxaan qoray corridor. maxaa kaloo noo haray ma dareemayo. Okay, halkaas markaad joogto waxaa jiri doona wax loo yaqaano legends. aanu tight ku dhufo waxaa ku dhufataa meesha ay ku qoran tahay color fill legend. halkaas markaa ku dhufato meel banaan ku dhufato mugtaa rooms adoo department ugu fiirinaya rooms ka dhigata mugtaa. Okay, kan hadeeti qayb legend ma siin, haddaan legend siinayna. taabkii taabo calaamad cancel markaa hesho
department C room department kalaradan ayuu ku siiyay this one kan room ka dhigna kan calaamada baalkii tabkii taabo cancel ka markaa heshid department room ka dhigna that's wrong yeah WC okay hadda rabto kalarada inaad bedesho department legend kor dhufo edit scheme dooro then waa aragtaa kalarada yeah hadda kalarka toilet waxaan ka dhigaynaa blue khafiifa jaalahana bedelina blue gaas khafiifka aan ka dhigi karnaa okay qolalka kale qolalka kale waxaan ka dhigaynaa jaalle jaalaas bibiyaha waxaa ka dhigi kartaa okay kuwan kalena sidoo kale waa bedeli kartaa direct apply okay kuwa kalena saas kale waa bedeli kartaa ha problem ma hadda koridorkan soo bedelina edit scheme aan dhahay koridor color kana qabanay color darabta inta ka dooran kartaa hadda rabtana soo color mix inta ka dooran kartaa kan modor orange waarta Soomaa okay hadda qolkaan oo kala waxaan sameeynaa qolkaan waxaan kala dhigaynaa qayb daanina iyo qayb sitina Soomaa kan oo kala qabanay click marka dhahdo delete iska dhigi kartaa delete marka dhahdo irid qaybtaan iridaan sameeynaa si qaybta setting loogu soo galo ku kordho iridka kadib waxaad tiraahdaa create similar iridka wadataa soo kale irid lamid ah wadataa space ka taabo si iridkiisa inaan ugu furmo okay then maxaan dhahnaa date waxaan soo sameynay room separate soo qaado ku dhufo aad u weyn waa qaybta qayda waa la yareeyaa qaybta settingka loo weynayaa room separate ku dhufa kartaa then maxaa sameynay architect room qaybtan click qaybtana click yeah then magacaan aad bedeli kartaa maxaa ku dhigi kartaa dining kana maxaa dhigi kartaa sitting qaybta fadhiga sitting room yeah hadda department C qaybtan dining-ka maxaan dhahay haddii aad weysid waxaad taabanaysaa saas adoo ah kana kala korgeynay markaa korgeysid calaamada taabka ee baalka ay taabkiga furaha taabka taabanay okay dhahe kadib department u bixi magaca gooniye si dining da si color gooni hadda rabto inuu ku noqdo dining kana kale room iska noqdo dar calaamadii roomka macnaha colorkii roomku qaatay kan dining-ka color cusub soo galay haddaad jeclaysan department yaa leedahay colorkaas waa soo bedelay dining-ka dhacaasiina alahan oo kale iska dooro okay dining-kana waa bedish okay sidoo kale haddaad rabto colorkaas room separator-ka waa qari kartaa kaliya dhahe hiding view-gaas ku dhufane hide category sagii waa laga qariyay hadda meel isku furan area isku furan oo laba kala rabo hadda kan area isku furan laakiin laba kala amal ku noqotay waa iska qari kartaa iban hadda doonto colorkiisana waa bedeli kartaa sidoo kale waxaan rabay inaad kugu daro hal xaba kala fiiri haddii waxaan sameynay room separator si aan u kala go'no qaybtaan iyo qaybtaan Soomaa
room separator kan laftirkiisa ayaa line-ka weightkiisa line weight-kana bedeli kartaa color-kana bedeli kartaa kaliya dhehe waxa soo qaadataa meesha ku qoran tahay graphics in view override by category ku dhufanay kadib haddaad rabto muuqaalkiisa partnerka bedeli kartaa dashed line ka dhigi kartaa waxaan dhanaa ka dhigi kartaa balse aniga by object style ka saan u dhaafanaya kadib color-ka bedeli color-ka orange ka dhig okay de weight ka bedel ilaa 8 gaarsi kadib apply okay you see weynin soma intaanu kaliya ku run yahay ku celi override weight ka waxyar bedel 3 oo color-kiisa sina bedel cashirkani maanta intaas ayuu nagu ogyahay qof walba isku daygiisa ayaa looga baahan yahay waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh